الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدن قدوميها بارلمانكا قدوميها أغل كسرة قدوميها كحجانا ذا حلبانا لما ذا أغل لما بعض الصحافة سراكيش عيد ماذا عندكم سلامة إسلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كذب وعن رواينا أنه مهد عليو قدومك بارلمانكا يقدق قوانقابل الدورشوينكا labada aqal dadaalka dheeraadka ay ku bixiyeen doorashooyinku inay u qabsoomaan sida ugu wanaagsan. intaas kadib waxay ii tahay fursad weyn maanta inaan hortiina imaado si aan barnaamijkayga siyaasadeed ee ku aadan xilka soo socda ee madaxweynenimada aan idinkugu soo bandhigo taasoo aan aaminsanahay inaan wada garwaaqsannahay inay tahay marxalad aad iyo aad muhiim u ah una baahan dadaal iyo wada shaqayn ka badan intii hore. mudanayaal iyo marwooyin waxaan soo marnay maraaxil kala duwan. ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan uga mahad celinaynaa maanta inaan joogno meel aan ka hadlayno maalmo iyo saacado inay nooga dhiman tahay doorashooyinka. waxaan ka aaminsannahay doorashooyinka Soomaaliya inay yihiin wadiiqada kaliya keeni karta in siyaasad degan iyo horumar oo ka dhaca dalkan isla markaasna xooji karta dawladnimada. marka waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo cid kasta oo gacan ka geysatay doorashadaanu inay dhacdo aan ognahay xilligeedii wax badan inay ka dib dhacday. intaas markii laga gudbo waxaa la socotiin marxaladihii la soo dhaafay iyo baahiyada kala duwan ee dadka Soomaaliyeed ay u qabaan dawlad taabagash. xildhibaanada sharafta leh waxaan rabaa inaan u sheego waxyaabaha priority-ga ile ama muhiimadda koobaad ile dalka Soomaaliya oo aan aaminsanahay inay keeni karaan in dhidibada loo aaso dawlad wanaagsan oo soo celisa amniga soo celisa kalsoonidii shacabka Soomaaliyeed dhexdooda ka jirtay iyo kalsoonidii looga qabay adduunka intiisa kaleba. qorshaha koobaad ee xukuumadaydu insha Allah wuxuu noqon doonaa amniga. sidaan wada ogsannahay amnigu wuxuu ku imaanayaa muhiimadda koobaad maadaama dalkan uu soo maray dhibaatooyin fara badan ay ugu dambeeyeen inay lixaadsadeen ama awoodeysteen nidaamyada argagixisada ee al-shabaab iyo al-qaacida oo runtii culays weyn ku haya maantana aan ognahay in magaalada Muqdisho ay dhaqaale ka ururiyaan oo ah caasimadii dawladdu ku shaqeynaysa. taas waxay ku imaan kartaa in dadka Soomaaliyeed dhammaantood iyo dawladduba ay ka howlgalaan soo celinta arrimaha amniga. waxaa la socotiin 10 sano ka hor bifadli illaahi tabaaraka wa tacaala meeshii aan gaarsiinay amniga annagoo ilaahay subxaanahu wa tacaala uga mahad celinayna magaaladan maalintii aan imaanaynay waxaan u maleynayaa 6 xaafadood kaliya inay gacanta dawladda ku jireen. 6daas xaafadoodna kama marayn joogitaanka al-shabaab laakiin nasiib wanaag dadaalkii la sameeyey iyo ilaahay fadligiisa maalintii doorashada la qabanayo ee 2012 ciidamada dawladda iyo ciidamada gacanta siinaya Amisom waxay sii marayeen labada shabeelle magaaladana waxaa loogu socday si xorriyad leh. baabuurta ka baxda magaalada Muqdisho waxay tagayaan caasimadaha kale ee gobolada maantana waa ognahay meesha ay joogaan. annagoo khibraddaas ka faa'iideysanayna waxaan rabnaa inaan dib u habeen ku sameeyno ciidamada qalabka sida militariga booliska una qaabayno hab keeni kara inay gutaan waajibaadkooda. waa garwaaqsanahay in lagu soo kordhiyey wax badan oo iga dambeeyey laakiin mar haddaysan gudanin waajibaadkii laga rabay oo magaalada Muqdisho maanta aan ku baqayno waxaan u baahannahay inaan ka fikirno hadafkii amniga inaan xaqiijino. taasna waxay ku imaan kartaa qorshe cad oo hufan oo xukuumaddu ay la timaado aan ka shaqayn doonno insha Allah tabaaraka wa tacaala.
waxaa intaas garab socod doona dhismaha hay-adaha kale ee kaba amniga oo ay ka mid yihiin cadaaladda. waxaan aaminsannahay amni inaan la sugi karin haddaan cadaaladu jirin. waxaan wada ognaa maanta garsoorku meesha uu joogo waxa keenayana waxay u baahan yihiin dad iyo budget keeni kara inay gaarsiiyaan cadaaladda meel walba oo suurtagal ah. marka waxaan xoojin doonaa marka budgetka garsoorka waxaan lagu samayn doonaa dib u habayn. waxaan ballan qaadayaa insha allahu tabaaraka wa tacaala waa la isxantaa waxaa la yidhaha madaxdu ma jecla maxkamadda dastuurka dhismaheeda ma jecla. waxaan ballan qaadayaa biidni illaahi tabaaraka wa tacaala maxkamadda dastuurka 3 sano oo ugu horraysa inay dhammaystiranto. ujeeddada aan ka leeyahna waxay tahay dowladnimada waxaa bays u ah cadaaladda. dalkan waxa u burburayna waa cadaalad la'aanteed. cadaaladdu ama ha noqoto mid siyaasadeed, ama ha noqoto mid garsoor, ama ha noqoto mid bulsho, ama ha noqoto mid dhaqaale, waxay u wada socon doonaan si wada jir ah oo isdhammaystiraysa. taas ayaan aaminsanahay inay keeni doonto ama xoojin doonto amniga. waxaa garab socon doona sidaas oo kale arrimaha dib u heshiisiinta oo aanu arko aad iyo aad inay muhiim u yihiin. dalkan maadaama uu soo maray burbur iyo dagaallo sokeeye, baahi badan wuxuu u qabaa dib u heshiisiin dhab ah oo ay hoggaaminayso dowladdu ka dhacda gobollada dalka dhammaantood, ay ka wada qayb qaataan isimada, culummada, haweenka iyo dhallinyarada, waxgaradka iyo ganacsatadu ay ka wada qayb qaataan. ummadda Soomaaliyeed waxaan aaminsanahay inaysan baahi u qabin qabiil, laakiin baahi ay u qabaan dawlad wanaagsan. intaas waxaa raaci doona dib u dhiska hay-adaha dawladda oo aan rabno inay xaqiijiyaan inay u adeegaan bulshada Soomaaliyeed. taas ayaa waxay keeni doontaa dadku inay ka maarmaan inay qabiilka u dacwoodaan ama ay u dacwoodaan hay-ado sharciga ka baxsan sida al-shabaab iyo al-qaacida oo aan ognahay culays badan inay ku hayaan. waxaan kor u qaadi doonaa kalsoonida dadka Soomaaliyeed dhexdooda ka jiri jirtay oo qorshaha dawladda number 1 asaguna ka ah. sababtuna waxay tahay dawladnimadu waa inay dhistaa kalsoonida dadka dhexdooda ah. meesha in badan oo siyaasiyiin ay ku mashquulaan ummadda inay kala geeyaan, aniga xukuumaddeedu waxay ku mashquuli doontaa inay midayso dadka Soomaaliyeed ahdaaf waaweyn oo xaqiijinayaan oo keeni karta inay awooddooda fikir, awooddooda waxqabad isugu geeyaan ayay la imaan doontaa biidni illaahi tabaaraka wa tacaala. waxaan rabaa inaan u gudbo arrimaha dhaqaalaha oo asagana aan aaminsanahay inuu qayb ka yahay soo celinta amniga. nuqdooyinka aan soo sheego oo dhan iyo brogaraamka dawladdaydu ama xukuumaddaydu dhammaantood waxay u adeegi doonaan arrimaha amniga, sida aan soo sheegnay dib u heshiisiinta iyo fidinta cadaaladda iyo kor u qaadidda kalsoonida dadka kaga dhex jirta waxay kor u qaadi doonaan arrimaha amniga. waxaan rabaa meeshaas inaan uga gudbo arrimaha dhaqaalaha oo iyaguna laba maarmaan ama tiir weyn u ah in dadka Soomaaliyeed laga fikiro dakhligooda in kor loo qaado. midda ugu horraysa waa si dardargelinta arrimihii deen cafinta oo aad ogtihiin inay dib u dhaceen, culaysyo badanna ay ka soo laabteen. waxay noqon doontaa tillaabada koowaad ee xukuumaddeeda ay qaadi doonto in arrintaas ay ka shaqayso. sidaasoo kale in kor loo qaado wax soo saarka dalka sida beeraha, kalluumaysiga iyo waxyaabaha kaloo la midka ah. waxaa garab socon doona insha allahu tabaaraka wa tacaala arrimaha ganacsiga, taasoo aan ognahay inay dadka Soomaaliyeed aad iyo aad ugu tiirsan yihiin arrimaha ganacsiga, aqoon fiicanna ay u leeyihiin, loogana yaqaano adduunka dad hal abuur leh. waxaan fududay doonaa hab kasta oo keeni kara dhaqaalaha dalka ama ganacsigu inuu kor aado ama kor u socdo. waxaan yaray doonaa caqabaadka ay kala kulmaan nidaamka
ayaan fududayn doonaa waxaan u samayn doonaa ganacsatada yaryarka dhiirigelin halkaas waxaan rabaa inaan uga gudbo qodob kale oo asaguna muhiim ah oo ah waxbarashadu ayadana waxay ka mid tahay waxyaabaha muhiimka ah ee xukuumaddayda ay xoogga saari doonto waxaan ognahay dadka Soomaaliyeed maanta jooga waxay u badan yihiin dhalinyaro mana helaan waxbarashada ay u baahnaayeen ma xasuusto ilaa hadda hal iskuul ama hal jaamacad oo dawladdu ay leedahay oo lacag la'aan ah dadka halka inta fadhiya inta waaweyn aan dhaho intooda badan waxay wax ku soo barteen waxbarasho lacag la'aan ah marka waxaan suuro geli doonaa insha Allah tabaaraka wa tacaala waxbarashadu inay noqoto lacag la'aan isla markaasna kor loo qaado tayada lana gaarsiiyo dhalinyarada Soomaaliyeed meel ay joogaan waxaan la soconaa dhalinyarada Soomaaliyeed maanta waxay u qaybsameen qayb tahriibta qayb ay duntaan hay'adaha argagixisadu iyo qayb jidadka taagan oo aan haynin fursad inta fursadda haysatana ma helaan waxbarasho tayo leh si aan u xaqiijino qaran tilaabaqaad wanaagsan sameeya waxaan xoojin doonaa arrimaha waxbarashada halkaas waxaan uga rabaa inaan uga gudbo arrimaha caafimaadka ayaguna laga maarmaan ah waxaan ognaa sidaas oo kale inuusan jirin isbitaal dawladeed oo lacag la'aan ah waxaan la wada soconnaa baahida dadka Soomaaliyeed ay u qabaan caafimaad tayo leh haddana lacag la'aan ah sidaas darteed waxaan abuuri doonaa ama kor u qaadi doonaa xarumaha caafimaad ee dalka ku yaala ayaan ayagana kor u qaadi doonaa waxaan rabaa inaan u gudbo arrin aad iyo aad muhiim u ah oo ah wada shaqaynta hay'adaha dawladda maadaama dalkani uu yahay dal federaal ah nidaam federaalna la soo qaatay waxaan xoojin doonaa wada shaqaynta xukuumaddayda iyo dawladaha federaalka oo aan ognahay xilliyadii la soo dhaafay in lagala kulmay dhibaatooyin fara badan waxaan aaminsanahay wada shaqaynta dawladda dhexe ama dawladda federaalka iyo dawladaha xibnaha ka wada shaqayntoodu inay abuuri doonto arrimaha aan soo sheegnay inay hirgelintoodu fududaato mudanayaal iyo marweyn waxaan idin ballan qaadayaa haddii aan ku guulaysto tartanka madaxweynenimada ee soo socda wada shaqayn dhow inaan la yeesho baarlamaanka ama labada aqal kuna caawin doona inay gutaan waajibaadkooda sida ugu wanaagsan waxaan ka fogaa doonaa faragelin iyo hor istaag labada aqal waxaana ku ekaa doonaa xuduudda sharciga ku qoran waxaan rabaa inaan idiin sheego dastuurka maanta yaalla waa kii 12 aan soo gabagabaynay waxaan ballan qaadayaa ilaahay idankiisa inaan dhammaystiro dastuurka gaarsiiyana afti dadweyne ilaahay idankiisa sidaas oo kale waxaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo 4 sano in dalkan ay ka dhacdo doorasho xur ah oo xalaal ah oo toos ah waxaan wada ognahay xilliyadii la soo dhaafay caqabaadkii iyo dhibaatooyinkii lagala kulmay doorashooyinka maadaama khibrad fiican aan u helnay waxaan ku dadaali doonaa inaan dib loogu naqanin doorashooyin dadban iyo kuwa kaleba lana aado lana gaarsiiyo dalka doorashooyin toosa oo meel walba ka dhaca mudanayaal iyo marweyn waxaan isku tirinayaa inaan arrimahan idin sheegay fuli karo biidnillaahi tabaaraka wa tacaala waxaan isku tirinayaa inaan leeyahay khibrad igu filan oo arrimaha aan soo sheegay aan ku fuli karo waxaan codsanayaa codkiina anoo og duruufaha ku soo baxdeen iyo xaaladaha ku timaadeen laakiin waxaan rabaa waxaan idin ballan qaaday haddaa ay dooratiin 4 sano inaad ku gaartiin deegaanadiina la idinka soo doorto waa mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu مشرح